nin sheekha ayaa bari lahaa shimbir nooca loo yaqaan galeed ama baas. shimbirkaas hal kelmad ayuu baray taasoo ahayd laa ilaaha illa allah. shimbirku mar kasta wuxuu ku dhawaaqi jiray kelmaddaas. maalin maalmaha ka mid ah ayay bisad ama makulaale qabsatay shimbirkii. isna kelmaddii muu haleelinee wuxuu ku dhawaaqay codkiisii dabiiciga ahaa. ninkii baa shimbirkii la hadlay isagoo ku leh dheh laa ilaaha illa allah, war dheh laa ilaaha illa allah. laakiin shimbirkii muu maqal ee wuxuu iska sii watay codkiisii ahaa ilaa uu ka nafbaxay. sheekhii ayaa ilmeeyey. markii la weydiiyeyna sababta ka oohinaysa wuxuu ku jawaabay sanado badan baan shimbirkan carabkiisa barayay hal kelmad oo keliya, haddana markii sakaraadku qabtay uu kari waayey. anna waxaan ka baqayaa inaan sidaa shimbirka haleeli waayo marka lay qabto. haddaba walaalkaygan ama walaashaydani daawanayo, carabkaaga bar kelmadda laa ilaaha illa allah si ay kugu fududaato maalinka aanay wax kale ku anfacayn iyada mooyee.